xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sidoo kalena hadda qayb ka ah midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo madasha badbaadinta qaranka ayaa ka guuray guryo ay ka deganayeen aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in dhammaan musharaxiinta ay ku heshiiyeen in laga guuro aagga garoonka diyaaradaha isla markaana magaalada Muqdisho laga dago goobo kala duwan waxaana sababta lagu sheegay istiraatiijiyad amni kadib markii uu dalka galay xaalad amni. wararkan helna ayaa tilmaamaya in sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay ka guurayaan guryaha ay degan yihiin isla markaana ay degi doonaan xaafadda Xariyaale aagga Falransa iyo sidoo kale xaafad ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo degi doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay guuritaanka ayaa degay xaafadda Miranaayo ee degmada Cabdicaziz halka madaxweyne Sheekh Shariifna la sheegay inuu degay aagga Fagax gaar ahaan hotel ku yaala dhabarka dambe ee sarta xaashi weheliye kana soo horjeeda xaruntii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee gudoomiye Mongaab. sababta ay uga guuriyaan guryaha ay deganayeen ee ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho meel u yaala madaxdan ayaa lagu sheegay laba arrin oo kala ah. kow in uusan jirin olole doorasho maadaama muddo kororsi xoog ah ay sameysteen xubnaha golaha shacabka iyo madaxtooyada Soomaaliya sidaas darteedna dalka uu galay xaalad amni oo ay muhiim tahay in ay feejignaan ay muujiyaan musharaxiinta. iyo qodobka labaad oo ah haddii musharaxiintan la weeraro waxay damacsan yihiin isu gurmadaan maadaama ay qabaan cabsi ah inuu weerar uga imaan karo dhinaca villa Soomaaliya. warar kale oo aan ka helna dhinaca mucaaradka ayaa tilmaamaya in musharaxiinta lagula taliyay inay degaan goobo kale oo looga soo gurman karo isla markaana ay ku badan yihiin dadka ay ka soo jeedaan. ila wareedyo ka tirsan mucaaradka ayaa sheegay in midowga musharaxiinta ay ciidamo ka sugayaan gobolada Shabeellooyinka haddii ay dhacdo in weerar lagu qaado guryaha ay degan yihiin. sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa in isku raaceen in aan dalka meelno looga bixin inta doorasho laga qabto. dhammaan ganacsigii u badnaa maalgashiga waaweyn ee gobolka Banaadir ayaa istaagay sidoo kale waxaa joogsaday qaar ka mid ah dhismooyinka muhiimka ah. ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu istaagay iibka dhulka iyo guryaha maalgashiga ganacsiga waaweyn iyo deeminta lacagaha cadaanka ah oo ay bixin jireen bangiyada waxaana sababta lagu sheegay in dalka uu galay marxalad kala guur ah oo aan la ogeyn waxa ay ku dambeyn karto. qayb ka mid ah cabsida amni ee dalka ka jirta ayaa xalay si weyn looga dareemay gobolka Banaadir kadib markii dawladda Soomaaliya ay isku dayday inay weerarto taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Janaraal Saadaq Cumar Xasan oo loo yaqaan Saadaq John oo degay aagga Shirkoole kaas oo ay maalmo kor dhammaan darajooyinkii uu ka xayuubay madaxweyne Farmaajo. xalay waxaa magaalada laga dareemay cabsi amni iyo abaabul dagaal iyadoo xildhibaanada qaar ay ugu baaqeen beelaha ay matalaan inay difaacaan Saadaq John oo ay dawladdu damacsan tahay inay soo qabato sida hadalka u dhigeen. waan uu sameeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo mas'uuliyiin kale ayaa baajisay dagaal xalay si weyn looga cabsi qabay inay martigeliso magaalada Muqdisho. arrintan ayaa ugu wacan cabsi amni oo ka jirta gobolka Banaadir kadib markii dawladda Soomaaliya ay sameysatay muddo kororsi xubnaha golaha shacabka iyo madaxweynaha ah iyo sidoo kale qalalaase amni markii ay martigelisay magaalada saacadii la soo dhaafay. dhinaca kale waxaa la filayaa in caawa magaalada Muqdisho ay mucaaradka kula kulmaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe isla markaana ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xaaladda waddanka gaar ahaan arrinta muddo kororsiga. warar hordhaca ayaa tilmaamaya in madaxdii hore ee dalka ay madaxweyne Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe ku cadaadinayaan in ay caawar baahinta ka hadlaan isla markaana ay cadeeyaan mowqifkooda kaga aadan arrinta muddo kororsiga haddii ay cadeyn waayaanna ay mucaaradku qaadan doonaan go'aan ka dhana Galmudug iyo Hirshabeelle. lama oga sida ay noqon doonto xaaladda waddanka oo hadda ah mid adag hase yeeshee waxaa muuqata bilowga dhacdooyin aan wanaagsaneyn oo dalka gelin kara dagaalo sokeeye.